aabbaha nasiibka badan leh een maanta hambaliyada u wadnaay waa kee waxaa weeyaan aabbaha fahansan mas-uuliyadda saaran aabbaha garan kara baahida ilmihiis uu qabo eenan keliya ahayn mid dhaqaale waa aabbaha u huraya waqti uu leeyahay inuu ilmihiisa geliyo waa aabbaha asaga iyo ilmihiisa ay ka dhaxayso xiriir ku salaysan ixtiraam qadarin xiriir ku salaysan naxariis iyo kalgacayl eenan ahayn xiriir qayle iyo dagaal ah waa aabbaha door bidaya inuu waqtigiisa ilmo la qaato halka qaar kale ay meelo kale waqti ku bixiyaan waa aabbaha xiiseynaya daqiiqadaha uu ilmihiisa la qaadanayo waa aabbaha hormarinaya qoyskiisa kana hormarinaya waxyaabaha kale ee fara badan ee nolosheena mashquul inaga dhiga haddii aad marka aabbahaas tahay oodan keliya u fiirsanayn baahida inta badan dadka dhan ay wada fahmaan ee dhaqaalaha ah eed intaa ku darayso walaalayaal baahida nafsiga ah kabniinka u baahan yahay ilmahaagu ee maskax ahaaneed midka aqoon ahaaneed midka tusaale ahaaneed waa aabbaha aaminsan inuu ilmihiisa tusaale u yahay wiil inuu tusaale u yahay gabar inuu tusaale u yahay gabar wuxuu tusaale ugu noqonayaa because gabadhu waxay ka fahmi doontaa oo ka baran doontaa sida rag loola dhaqmo wiil wuxuu tusaale ugu noqonayaa noloshii dhannaa meeshii uu kaga dayan lahaa ogsoonada walaalayaal gaar ahaan wiilasha mar kasta aabbihii waa u baahan yihiin laba marxaladood bayse si gaar ah ugu sii baahan yihiin oonan ka maarmayn marnaba aabbihii labada marxaladood maxay tahay waa laba marxaladood oo qofka gaar ahaan wiilku isbeddel weyn uu samaynayo uu fahan weyn uu samaynayo noloshiisana saameyn ku leh marxaladda koobaad waxaa weeye markuu wiilku gaaro 3 sannadood markuu gaaro wuxuu is ogaanayaa inuu ka duwan yahay gabadha wuxuu is ogaanayaa inuu nin yahay wuxuu is ogaanayaa jidka ay gabadhu marayso iyo waxyaaba ay ku ciyaarayso iyo asaga jidka uu maraya waxyaaba ku ciyaaraya inay kala duwan tahay wuxuu xiiseynayaa marka inuu u hadlo ama u labistaba aan yiraahdo sida aabe u labisanayo kabihiisuu cagihiisa yaryar saa u dhexgeliyaa dharkiisuu saas isku dayaa inuu isaga la joogo la socdo ayuu aada u jeclaystaa sababtoo ah 2 sano ka horreysay waqti badan wuxuu la qaatay hooyada laakiin maanta wuxuu isku arkayaa inuu wiil yahay inuu nin yahay dhinacii aabbuhu rabaa inuu soo jeesto waa marxaladda koobaad oo si gaar ah u xiiseynaya u rabo inuu wiilka aabbihii la socdo marxaladda labaadna walaalayaal waxaa weeye mid kaloo sidaasoo kale isbeddel aad iyo aad u weyn uu dhacayo oo weliba taa hore ka awood badan waa markuu soo gaaro 13 sano qiyaastii waa marka carruurnimadii uu dhinac dhigaayo oo qof weyn u soo gudbaayo waa marka uu raganimadii qiyaastii isku arkaayo waa marka uu rabo inuu nin weyn au noqdo gaar ahaan labada marxaladood tusaaleyntii loo baahnaa saaxiibtinimadii loo baahnaa fahankii loo baahnaa aabbaha laga helayaay waa kaa aan maanta hambaliyada u wadno walaalayaal